السلام عليكم كسو دواada daawadayaal qorshe media barnaamijkeenu maanta waxa ku saabsan yahay shanta magaalo ee caalamka ugu dadka badan dhulku si joogta ayuu wareegayaa oo maalinba maalin ka dambaysa ayuu isbedelaa maadaama ay dadkiisu sii kordhayaan magaalooyinka aad ay u sii fidayaan ilaah dakhliguna way sii yaraanayaan iyadoo dib loo eegay waqtiyadii hore cilmi baarayaashu waxay qiyaasayaan in tirada guud ee dadka adduunka ku nool kun sano ciise horti ay ahayd ku dhawaad 270 milyan ilaa 300 milyan oo qof maanta waxa loo maleynayaa inay adduunka ku nool yihiin 7.7 bilyan shan sano ka hor waxa lagu qiyaasayaa tirada guud ee dadka caalamka ku nool inay gaadhaysay 7.2 bilyan sida ka muuqata cilmi baaraysta tirada guud ee dadka caalamka ku nool waxay u kordhaysaa si xawli ah dhammaan wadamada dunida Shiinaha ayaa dalka ugu dadka badan oo ay dadkiisu gaadhayaan 1.4 bilyan qof Hindiya ayaa soo gashay kaalinta labaad iyadoo tirada guud ee dadka ku nool ay gaadhayaan 1.3 bilyan labadan wadan ayaa marka la isku daro caalamka ka ah 18% wadanka saddexaad ee adduunka ugu dadka badan waa Mareykanka oo ay population-kiisu gaadhayaan 328 milyan daraasadan waxaanu ku arki doonaa in qaar ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee adduunka ay Aasiya ku yaalaan iyadoo ay dadka kale ee wadamada caalamka ku nool aad u tiro badan yihiin haddana waxay daraasadan daaha ka rogaysaa in magaalooyinka ugu dadka badan ay ku yaalaan qaaradda Aasiya Tokyo Japan waa magaalada ugu dadka badan adduunka Tokyo waa magaalada caasimadda ah ee Japan waana magaalada ugu dadka badan wadanka sidoo kale waa magaalada ugu dadka badan caalamka sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay website-ka World Atlas xaqiiqdii waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan adduunka ku dhawaad 730 milyan oo qof ayaa ku nool Tokyo Tokyo-da weyn oo ka kooban Tokyo iyo aagaga ku xeeran magaaladan waxay ku taalaa jasiiradda Honshu oo ah jasiiradda ugu weyn Japan magaalada labaad ee ah adduunka ugu tirada badan waa Delhi Hindiya Delhi waxay ku taalaa bartamaha waqooyiga Hindiya Delhi oo sidoo kale loo yaqaan National Capital Territory of India waa magaalo si xawli ah u koraysa isla markaana waa magaalada ugu weyn Hindiya si dhaqso ayay u fidaysaa sanadkii 1950kii tirada guud ee dadka ku nool Delhi waxay ahaayeen 1,369,000 oo qof sanadkii 2016kii dadkeeda waxa lagu qiyaasay 18.6 milyan lambaradana tiradan waxay badiyaa ku jira dadka magaalada ku nool iyo meelaha ku hareereysan ee ka agdhow magaalada Delhi Shanghai Shiinaha magaalada cajaa'ibta iyo la yaabka waa magaalada saddexaad ee caalamka ugu dadka badan dadka ku nool Shanghai waxa lagu qiyaasayaa 720 milyan oo kun oo qof nambarada Shanghai sidoo kale waxa ka mid ah meelaha banaanka ee ku yaala magaalada duleedkeeda waa magaalada ugu dadka badan Shiinaha dadka qaarna waxay aaminsan yihiin inay tahay Shanghai magaalada ugu weyn dhulka hadda waa sidee aaminsan yihiin 50 sano ka hor tirada guud ee ku nool Shanghai waxay ahayd ku dhawaad 2.4 milyan 2015kii waxa la arkay in tirooyinkeeda ay kordheen 3.5 bilyan qof sanad gudihii hayaay haddii ay hal magaalo ku nool yihiin 720 milyan Soomaalida oo dhan waxa lagu qiyaasaa waxa aan ka badnayn 30 milyan sanadihii ka dambeeyay 2015 tirada dadka ku nool magaalada waxay kordhaysay si la yaab leh population-ka magaalada ee u kordhayay sida xawliga waxay Shanghai ka dhigtay mid soo jiidatay indhaha caalamka sidoo kale Shanghai waxa loo yaqaanaa the Pearl of the Orient haddii 720 milyan ay ku noolaadeen hal caasimad ka waran 30 milyan oo Soomaali ah oo ku heshii waayay dhulka baaxadda leh saddexdii magaalo ee ugu dadka badnaa ee ugu horeeyay barnaamijkeena ay noqdeen qaaradda Aasiya diradana waxay haysaa xagga iyo qaaradda Ameerika magaalada afraad ee caalamka ugu dadka badani waa Sambola waa magaalo ugu weyn Brazil Sambola sidoo kale waa mid ka mid ah 10 magaalo ee ugu waaweyn adduunka waxa sidoo kale loogu yeedhaa Candidate George ama Samba lambarada population-ka ee la muujiyay waxa ku jira dadka ku nool agagaarka ku xeeran magaalada dabayaaqadii 1950kii tirada guud ee Sambola ku nool waxay ahayd ku dhawaad 2.3 milyan qof sidaa darteed 50 sano gudahood tirada waxay korodhay ku dhawaad 10 laab population-ka dadka ku nool magaaladan ayaa lagu sheegaa in ay gaadhayaan 22 milyan iyo 43 kun oo qof
magaalada shanaad ee caalamka ugu dadka badani waa Mexico waana caasimadda dalka Mexico meelaan ka fogeyn Sambola waxa ku taala magaalada shanaad ee dunida ugu weyn uguna dadka badan Mexico City ayaa gashay kaalinta shanaad kala horeynta population-ka magaalooyinka iyadoo tirada guud ee dadkeedu gaarayaan ku dhawaad 21 milyan waa magaalo madaxda Mexico sidoo kalena waa kursiga midowga Mexico waxay leedahay xarun maaliyadeed oo weyn waxaana loo yaqaanaa magaalada ugu weyn ee dadka Isbaanishka ay ku nool yihiin dunida sanadkii 1950kii dadkeedu waxay ka yaraayeen 3.5 milyan waxa la yaab noqotay in population-ka magaalada Mexico kordhay ku dhawaad 10 jibaar